wararka naga soo gaaraya degmada Caabud Waaqi gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in saacadii la soo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo loogu soo horjeedo gumeysiga Kenya oo dhibaato ba'an ku haya shacabka ku nool gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya degmada Caabud Waaqi ayaa sheegaya in shacabka badi ay isugu soo baxeen goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta iyo goobo kale kuwaasi oo muujinaya shucuurtooda ka aadan sidii ay ugu dhiidhiyeen shacabkii dhawaanta lagu xasuuqay gobolka Gado kuwaas oo dhibaato ba'an u geystay ciidamada gumeysiga dalkaasi Kenya. shacabkan ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Gado iyo guud ahaan Soomaaliya laga saaro isla markaana waxay ka dalbadeen dowladda federaalka Soomaaliya in gabi ahaanba ciidamadaasi ay ka saarto kuwaasi oo sheegtay inay ka tirsan yihiin AMISOM laakiin la sheegay wararka qaar ay tilmaamayeen in ciidamadaasi aysan ka tirsaneyn kuwa AMISOM balse si argoosi ay u joogaan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. Kenya ayaa dhawaantan waxa dad shacab ah ay ku laysay deegaano hoos yimaada degmada Ceel Waaqi gobolka Gado halka kuwa kalena la sheegay in ay afduubteen walow markii dambe qaarka la afduubtay midkooda laga helay meel aan sida ugu fogeen degmada Ceel Waaqi gobolka Gado. dad codsaday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada ugu badan ee ciidamada Kenya dhibaatada ay ka geystaan ay ka mid tahay deegaanada Faafacdoon, Buusaar, Beled Xaawo iyo Ceel Waaqi dhamaantood ka tirsan gobolka Gado waxaana ciidamada Kenya la sheegay in ay xilliyada qaarkood si bareer ah ay baawsta ay u jeersiyaan shacabka ku nool gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyay ayaa xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhacay dagaalo kaas oo u dhaxeeya ciidamada gumeysiga Kenya iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana la sheegay in raacad ciidamada xabashada Kenya ay isaga carareen furmaha lagu dagaalamay waxaana kaydka customerka ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ciidamadaasi ay isaga carareen halkaasna laga taagay calanka Soomaaliya. sidoo kale wararka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in maamulka Jubbaland oo saaxiib la Kenya oo gudi u magacaabay gobolka Gado si xaqiiqda loogu soo raadiyo. wasiirka baxsadka ah ee maamulka Jubbaland oo qaabishan amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Jaran ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudiga xaqiiq raadinta ah ee dhibaatadii dhawaantan ka dhacday gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya waxaana isagoo la hadlay laanta af Soomaaliga BBC-da ka lexleexday hadalka laga weydiiyay inuu ka jawaabo balse uu dusha u saaray oo kaliya Al-Shabaab balse hadalka aysan meesha aalin waxaana wasiirka maamulka Jubbaland oo qaabishan dhanka amniga Cabdirashiid Jaran ayaa laga sugaya jawaab cad oo ka bixiyo gudiga loo xil saaray inay soo xakameeyaan ama ay soo baaraan dhibaatadii ka dhacday. haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada Ceel Waaqi gobolka Gado oo ka hadlaya isla markaana muujinaya dareenkooda ayaa hadaladoodan waxaa ka mid ahaa waa arrin cusub noqotay oo dadkaan la laynayo oo masaakiintii guryaha ku jirtay la dilayo dadkaan anaga waa ka maydka anagi eber baa laga dhigay duugaan madaxa hore u duugaan lugihii bannaanka u soo bixiyeen wiilashaanadi waa ka waa dhintay talbeeli waaye magacaygu Axmed Xasan Cabdullaahi waxaan sheegaynaa oon cadaynaynaa wax cadaynka dhana weeye ninka hadda hortanada yaalla oo meydka ah Cabdullaahi warsame abayla weeye aabihii wuu maqan yahay laba nin oo kale aan la maqan waa wiilkii curudka ahaa waxa hadda meydkiisa aan kor taagannahay ilaahay baa qadaray inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun adduun weynaha ama gaar ahaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa 24 saac dawladda Kenya dawlad ma hanbaleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad midda dalka u soo duushay waa iyaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn waxa weeye dawladda Kenya lagu sheegayo waxay nagu wadaa inay dadka naga iibsato line way ka baxday bad iyo bariba waa dadna yeeshay dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haday ayaga nagu wareejiyeen oo inoo soo direen oo inay yiraahdeen laaya hanoo cadeeyna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ninka isku sheegay la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihiisa wasiirada haday dal iyo dibad